waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. alxamdulilah rabbi alcaalamiin amaa bacd waa barnaamijkeenii hawada kala soco aynu kartoos ugala soconay telefishinka qaranka iyo raadiyo hargeysa. magacaygana waxaa la yidhaha cabdifataax cabdilaahi cumar. waxaan dhigayaa maadadan tarbiyada maada tarbiya alislaamiya galaaskuna waa fowan jabtarkuna waa jabtarkii shanaad mawduucuna waa akhlaaqiyaadkii oo casharkii labaada. safxadda lagala soconaya waa 290 ilaa 690. waxaanuu daaraya casharku waxa weeyaan casharku waa taxriimu sina waa xaaraantinimeynta la xaaraantimey sinada. muqadama hordhac ina sinadu min acdani dunuub dunuubka ugu waaweyn weeyaan bacda shirku billaah bacdi dabadeed ashirku billaah ilaahay in wax lala wadaajiyo bacda dabadeed ashirku in ilaahay lala wadaajiyo bilaahi ilaahay wax faqad qarana allah ilaahay wuxuu la xidhiidhiyey casa wajale bishirki shirkiga ayuu la xidhiidhiyey sinadii waqadlu nafs iyo nafta dilitaankeeda waqadli in la dilo annafsa nafta kii ilaahay yidhi waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yasnuun waa lala xidhiidhiyey marka faqad qarana allah ilahay wuxuu ilaahay la xidhiidhiyey sinadii bishirki shirkigii waqadlu nafs iyo nafta dilitaankiisa oo maxaa loola xidhiidhiyey lima fii waxa ku jira maxaa ku jira min idaaca inay dayacmaan al ansaabu nasabka inuu dayacmo walintihaag in meel lagaga dhaco alxurumaat xaaraanti walishcaal in la huriyo alcadaawa cadaawad walbaqdaa isnaceeb bayna annaasi dadka dhexdiisa. oo iminka haddii lagu raha limaada xarama sina waxaad ka bilaabaysaa min idaacati alansaab nasabkoo dayacma walintihaag iyadoo meel lagaga dhaco alxurumaat wixii la xaaraantimeeyey waishcaali in la huriyo alcadaawati cadaawad walbaqdaa iyo isnaceeb bayna annaasi dadka dhexdiisa oo min ifsaadi la fasahaadiyo oo la xumeeyo kullu minhum mid kastaba imra'ata gabadha saaxibu saaxiibki oo ibnati inantiisa saaxiibki oo ukhtihu ama walaashi wa fii daalika kaasina khaaraab waa baaba weeye oo yaa baabaya lilcaalami caalamka kulluhu dhammaantay. walihaada sidaa darteed kaana wuxuu ahaaday asaani kii sinaysti ee almuxsini dhowrsano muxsin dhowrsano waa maxay reerka lahaa baa looga jeedaa waayo min asalaasati waa saddexdii aladiina kuwaasoo axala allah ilaahay xalaaleeye weeyaan dimaahum dhiigooda waa la rajmiyayo dhagax baa lala dhacaya waa dadka ilaahay inoo baneeyey in dhiiggiisa la daadiyo waayo ka aan reerka lahayn isaga marmarsiya loo hayaa laakiin ku reer soo yeeshay ama reerle waxaa la leeyay adiga maxaaba ku wata reer baabad leedahe marka waaba dhiiggiisa dadka ilaahay baneeyey ayuu ka mid yahay marka in la daadiyo. maxaa u daliila xadiiska cabdillaahi bn mascuud radia allahu canhu ana nebi nabigu sal alla alay slam qaala wuxuu yihi laa yaxilu ma banaana dimu dhiig imru qof muslima ma banaana oo yashhadu qiraya an laa ilaha illa allah qiraya wa anii aniguna can rasuulillahi rasuulkii ilaahay maxay ku ballaantaha un baa la yidhi ardayow ilaa biixdi salaasa saddex midkood unbay ku banaantay ya saddexdaa midkood dhiigooda la baneeyey waayo asaybu saani waa nin reer leh ama soo maray oo sinaysta wanafsu binafs naftii naf disha wanafsu iyo naftii binafsi naftii ogaanu disha wa taarig lidiini waa ka tegay diintiisa oo mufaariqan ka dhex baxoo ka faaruqmay muxuu ka faaruqmay lijamaacati lmuslimi jamaacada muslimiinta oo waa maxay kaasi wuu ridoobay isagoo muslina markaa kaana dhiiggiisa in la daadiya waa la baneeyey marka saasi saddex baa dhiigga la baneeyey rasuulku wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam dhiig qof muslima ma banaana oo qiraya ilaahay xaq lagu caabudaana jiro ilaahay mooyaane rasuulkii ilaahayna anna aan ahay rasuulkii ilaahay ilaa biixdi salaad saddex midkood baa lagu baneeyey saddex midkood unbaa ilaa biixdi salaas
waa maxay saddexdaa midkood saybu saani nin reer lahaa oo sinista ama soo marayba annafsu binafs naftii nafdiisa wa taarig lidiini diintiisii buu ka tegay almufaariqa wuxuu ka faariqmo uu ka dhex baxay liljamaaca jamaacada muslimiinta waqad tawaacada nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuu ku goodiyey xiina qaala markuu la muxuu ku goodiyey laa yasni saani laa yasni ma sinaysto asaani ka sinaysanaya xiina yasni markuu sinaysanayo wahuwa mu'min isagoo mu'mina oo maxaa looga jeedaa yani markuu qofka xaaladda sinada ku jiro oo uu doonayo inuu sinaysto dee iimaankii baa laga qaadaa weeye oo iimaankii ma leh xadiiskan kale aynoo macneyn doonaa oo rasuulku muxuu yihi laa yasni waqad tawaacada nebi sal sl wuxuu ugu goodiyey xiina qaala markuu yihi laa yasni ma sinaysto asaani qofkan sinaysanaya xiina yasni markuu sinaysanayo wahuwa mu'min isagoo mu'mina yacni mu'min maa xaaladaasoo iimaanka waa laga qaada xadiiskan kale aynooma cadeynaya rawaa abidaai fi sunani fi xadiisi abi hureyra ana nebiyu sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu ihi ida sanaa hadduu sinaysto asaani ruuxan sinaysanaya kharaja minhu liimaan iimaankaa ka baxa fa kaana wuxuu ahdaa ka dullati sida harhkoo kale fa ida nqalaca markuu ka siimo sinadii rajaca ilayhi liimaan iimaankaa usoo noqda wixii markuu ka baxo oo waxa weyan ka siimo ayaa iimaankii waxa weyan usoo noqda buri rasulka sal slam xadiis kaleo bukhaariga ku yaalo wuxuu ku yihi rasuulku alayhi salatu salam fi saxiix bukhaari fi xadiisi nabiy sal allahu alay wasalam adawil u dheeraa waa la soo koobay wa fiihi waxaa ku jira jaa jibriil wa mikail nebigu waxa mid jibriil malakul jibriil weeye waa mikail iyo malaga la ydhaha mikail waa malagu ilaaha u wakiishay inuu roobka soo daayo uu soo وفيه جاء جبريل baa mid mikail ilى النبي صلى الله عليه وسلم qaala wuxu uhi فاndalqnaa waanu tagnay faatayna waxaan nimid calىa misli tunuur sidii moofe oo kalea waa naaro calىa misli oo kale atunuuro waxa weye moofe wa axsib waxaaban filayaa buu yihi xadiiska asxaabigii warinayey annagoo kaana yaquulu inuu rasuulku yihi faidaa fiihi meesha waxaade laqdun qaylo wa aswaatun iyo codad qaala wuxuu yihi fadalacnaa fiihi waanu egnay ayuu yihi oo markaanu egnay jibriil baan la socdayo iyo mikailo fadalacnaa fiihi waanu egnay faidaa fiihi waxaaba ku jira arijaalu rag wa nisaan dumar curaatan qaaqaawan wa idaa hum yaatihim uu uga imanayo allahabu holiciina min asfala minhum xagga hoose fa idaa aataahum daalika markuu xaggaa hoose uga yimaado allahabu holici dawda-u waa kan kiisii ku sheegaye ay kasii macneynaya ay saaxu waxay qeelinayeen maxay qeelinayeen min shadati xarihi kuleelkiisa dartii min shadati darnida alxarihi kuleelkiisa faqultu markaasaan ku yihi buu yihi nebi maxamed alayh الsalatu wasalaam man haaulaai kuwaas waa ya jibriilow qaala wuxu uhi haaulaai kuwaasi asunaat waa raggii sinaysanayey wey wasawaani iyo dumarkii sinaysanayey walidaalika sidaa darteed akhada nebigu sal اله alيه wasalam wuxuu uga qaaday albeyca heshiis wuxuu kaga qaaday min asxaabi asxaabtiisii calaa an laa yaquc inaanay ku dhicin fii hada alfaaxisha fuxshigan xune sinada ah inaanay ku dhicin rawa bukhaari waxaa laga wariyey wa muslim min xadiisi cibaada ibnu saabit ana nebiy sal l sl qaala inuu yihi waxooluhu hareerihiisana waxa ahaa cusaabatan koox min asxaabi asxaabtiisa muxuu ku yihi baayiciin igula heshiiya buu asxaabtii ku yihi markaa calaa an laa tushrikuu bilahi shayan inaydan ilahay waxba la wadaajin walaa tusriquu aydaan waxba xadin walaa tusnuu aydaan sinaysan marka wa qaala imaam axmed raximah ullah wuxuu ihi laa aclamu ma ogi bacda qali dilitaanka dabadii annafsi nafta damban acdamu ka weyn min asina sinada wa qaala imaam mundirna wuxuu yihi raxmat ullahi caleyh ilaah u naxariistee saxa waxa saxa ana mudminu qofka caadista alkhamr khamriga cabitaankiisa idaa maata hadduu dhinto laqiya allahu ilahay wuxuu la kulmaa muxuu la kulmaa ka caabudi sidii qof caabudaya inuu yahay alwasni sanamka oo wasni jamceedu waa alowsano kulu maa yacbudu min duuni illah baa la wax kastoo ilahay sukriyi la caabudo walaa shaka shakina kuma jiro ana sinadu ashaddu inay ka daran tahay wa acdam ay ka weyn tahay min sharbi cabitaanka alkhamri khamriga ardayay asbaabaa sinada keena asbaabu tuaddi ila sina sababaha keena sinada waxaa kaloo la oran karaa min muqadamaati sina hordhaca sinadii intaanay dhicin hordhac bay iska leeday waxaa kaloo la oran karaa min muqadamaati sina waxa kaloo oran karaa asbaabi sababaha keena tuaddi asbaab sababta alati taas tuaddi kana ila sinada diinta islaamku waxaan markay sinada mamnuucisay waxay wado kastoo loo maro oo hordhac u ah way noo diiday oo maxay u ilahay laa taqrabu sina sinadaa u dhawaana ha samaynina maaha yacni waa hordhac kasta
oo sinada keenaya ayaa laynoo diiday. kow sababaha sinada keena ama hordhaca sinada maxaa ka mid a ilaaqu lbasar qofku aragga inuu sii daayo. qaala tacala ilahi wuxu uhi qul lilmu'miniina waxay mu'miniinta ku dheh yaqaduu laaba min absaarihim araggiina laaba. waannadaru eegmadu yakuunu waxay ahaanaysaa fi laswaaqi suuqi walamaakin iyo meeli alcaamata guud ahaaneed waa meelihii guud ahaaneed. walcabra ama ta laga soo tabinayo ama ka soo boodaysa maxay ka soo boodaysaa ashaashaad shaashaadki alqanawaati kanaliskaasoo alfidaa'iya hawada ah marka ay ka iman waxay ka soo boodayaan shaashaadkii kanaliskii alfadaa'iya halkaa uu khaldee alfaadixa bahed fadeexadda badan leh ayee. walmajalaati iyo jariidadihii bay ka soo boodaysaa alhaabidati liitay ya majalaat waa jariidadihii alhaabidati liitay. waxaa kale ka soo boodaysaa wa tilifaas telefishanada ay ka soo boodaysaa telefishanada qaar xumaanta lagu baahiyo wa keyrihii iyo wixii lamida. saaniyan ka labaad waxa weeye sababaha sinada keena alkhuruuju inay baxaan annisaa dumarkii mutabarijaad iyagoo mutabarijaad waa maxay waa bixidda ay ku dheehanti gabadhu inay quruxdeeda muujiso oo aanay ardayay xidhneen xurmadii aan dharkii xurmada ee muslimiinta ee dumarka lagu yaqaanay ayaanay xidhneen. markaa tabaruj waxaa la yidhaha gabadhu intay baxdo oo ay quruxdeeda muujiso taana waa la diiday. gurigeeda iyo odaygeeda gabadhu isku qurxin kartaa laakiin inay baxdo oo ay quruxdeeda muujiso. khuruuju dumarka inay baxaan khuruuj nisaa dumarka inay baxaan mutabarijaad iyagoo quruxdooda la baxaya iyagoo muujinaya oo mutacadiraad iscadiriya halka u baxayaan ila alaswaaqi suuqi. wa hada tabarujkaasna waa baabun cadiim waa baab weyn oo yu-addi keena muxuu keenaa ila alfaaxisha fuxshigu keenaa. qaala tacala ilahi wuxu uhi waqarna fi dumaryo ku nagaada fii buyuutikuna guryuhiina walaa tabarujna ha bixina waa bixidii ay ku dheheen quruxda ku muujinaysa gabadhiya tabaruju bixitaankii quruxda lagu muujinayey ee aljaahiliya jaahiliyada alula hore. ilahi wuxuu ihi waqarna ku nagaada fii buyuutikuna guryihiina walaa tabarujna ha bixina tabaruju bixitaankii aljaahiliya jaahiliga alula hore. markaa saasi darteed tabaruj waxaa la yidhaha gabadhu intay waxa weeyaan isqurxiso oo ay baxdo oo ay quruxdeeda muujiso oo aanay dharkii xurmada muslimiintu ay iska lahaayeen aanay xidhneen oo ka mid yahay xijaabku. ka saddexaad waxay dukhuuli inay u soo galaan alrijaalu raggi alajaanib ajaanibka cala almar'ati gabadha. ajaanib waxaa la yidhaha qof kastoo gabadha geeya ama nin ayaa la yidhaha ajaanib ama waxaa la yidhaha ninka geeya dumarka geeya markaa waxa weeye aan maxaarimtiisa ahayn ayaa la yidhaha ajaanib. dukhuulu inay galaan arijaal ragga aljaanibi ajaanibka cala almar'ati gabadha. wa akdar waxa ugu khatar badan aljaanib ajaanibka waa ugu cala almar'ati gabadha waa ugu khatar badan alaqaariba qaraabada sawjaha odaygeeda wa aqaaribta qaraabada abweyha labadeeda waalid. fainahum maxaa leeyihi taraduduna kuwaas way soo noqnoqdaan qaaliban inta badanaaba. wa rubama waxa laga kaana ijmacahum inay ku kulmaan fii beytin waaxid guri keliya. wa taaratan waxa mararka qaarna takuunu inay ahaato waxdaha keligeed fi lbeyti guriga oo cinda dakhuuli usoo galay axaduhum midkood. rawa bukhaari wa muslim waxaa laga wariyey fii xadiisi cuqbata ibnu caamir ana nebiy sal ly sl qala wuxu uhi iyaakum raggi waxaa niga digaya dukhuuli inaad u gashaa cala nisaai dumarki. faqaala rajul nin baa yidhi min alansaari asaarta afra'ayta alxamwa bal ka waran dumaashiga ama seedigaba. qaala wuxuu ihi rasuulku alxamu seediga ama dumaashigu almowt waaba geeri yani geeridaabay ka xuntahay baa looga jeedaa. qodobka afraad waxa weeye maa yaxdiso wixii ka dhex dhaca weye ka dhaca min bacdi bar ka mida mujtamacaat alislaamiya bulshooyinka islaamka min iqaamati iyagoo ku oga alxaddi xadkii wax ku ogaan cala daciifi kii daciifkaa wa tarkihu waxay iskaga tagaan cani ilqawiyi kii awoodda lahaa. fa ina hada kaas min acdam waa kuwa ugu waaweyn asbaabi sababtii alatii taasoo tu-addi keenta ilaa itisaari inay fido asina sinada. wa hada kaasina aladii kii way facalo ay samayn direen banuu israa'iil reer banu israiil. rawaa bukhaari wa muslim waxaa laga wariyey min xadiisi caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri qaala nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu yihi inamaa ahlaka waxaa laaga aladiina kuwii qablakum niga horeeyey anahum iyagu kaanuu waxayan idaa sariqa fiihim hadduu xado ashariifa koogii madaxdaa tarakuugu way iskaga tegi jireen. wa idaa sariqa fiihim hadduu waxdo addaciifa kii daciifka liitay aqaamuu caleyhi waxay ku ogi jireen alxadda xadka. ka shanaad waxa weeye taakhiiru iyagoo dib uga dhacaan man balaqa ciddii qaangaadhee min ashabaabi dhalinyarta ragga dhalinyarta iyo washaabaat iyo dumarka dhalinyartii can isiwaaji guurka.
fainoo iyadu bimujaradi isla markaa buluuqu u qaan gaadho tastadda cindahu waxaa ku adkaata ashaawa shahaawada waa baahidiisi guud fain lam yakun haddaanu u ahaanin bijaanibihi dhinaciisa xalaala xalaal yadfu ahaa biha uu isku baktiyo waxaan hayaa fa rubamaa waxaa laga yaaba yeljuu qofkaasi inuu u isho ila alxaraami xaraam alladii kaasoo yajlibu lahu usoo jiidaysa alcaara qofku inuu ceeboobo fi dunya addunyo walkhasi uu duloobo oo uu hoogo fi laakhira aakhiro waxaana u daliila xadiiska bukhaari wa muslim min xadiisi ibni mascuud asxaabiga cabdillahi ibni mascuud ana nebiy nebigu sal ly slam qaala wuxuu ihi yaa macshar shabaab jamaacadii dhalinyartaho man istadaaca minkum ka iniga midagi kara albaa nafaqada guurka ama dhaqaalaha guurka waxaa la yidhaha albaa man qadara caleyhi takaaliifa xayaati sawjiya falyatasawaj ha iska guursado maxaa yeeley fainuu aqadu iyadoo u laabitaan badan lilbasari xagga aragga wa axsan iyadoo u dhowrsooni badan lilfarji xubinta taranka waxaa kaloo u daliila xadiiska abi hureyra radi allahu canhu ana nebiy sala allah alay slam qaala wuxuu ihi idaa khadaba calaykum hadday inii soo geed fadhiistaan man tardoonu cidaad raali ka tihin raga diinahu diintiisa wa khuluqahu akhlaaqdiisa fasawijuuha hablihiina siiya ilaa an tafcaluu haddaad saa samayn weydaan takun fitnatan fi lardi adduunka fitna ka dhici doonta waxaa kaloo ka dhici doonta wa fasaadun fasaad cariidatun ballaadhan waanu aragnaaba iminka talixaad sababaha keena sinada intishaar iyagoo ay fidaan aalaati qalabkii allahu miisikada walfasaadi ay fasahaadaan baa ka mid a ardayow fi lbuyuuti guryuhu falqinaa huwa heesuu huwa beridu waa boosta asina sinada weeye walaflaami aflaantii alkhaliicati liidatay alatii taasoo taxkii ka sheekeynaysa maxay ka sheekeynaysa algharaam jacaylada ka sheekeynayay bayna alrajuli walmara bayna u dhexeeya arajuli ninkii iyo walmar'ati gabadhii ee cabra laga tabinayay maxaa laga tabinaya alqanawaat waa kanaliski alfadaa'iya ee xagga hawada ee alfaadixati fadeexadda leh oo mawaaqic ama waxaa laga tabinaya maxaa laga tabinaya ardaya websaadada alibaaxiyati la baneeyey ee fil internetka wa kuli dalika waxaasoo dhani mima yadcuu waa wixii u yeedhanaya maxay u yeedhanayaan ila alfaaxishati fuxshi qaala tacaala ilahi wuxuu yihi ina aladiina ku yuxibuuna jecel an tashiica inay ku faafto alfaaxishatu fuxshigu waa wax xunay sinadu ay ka mid tahe fi ladiina aamanuu kuwii ilaahi rumeeyey lahum kuwa cadaabun aliim cadaab daran baa u sugnaaday fi dunya adduunyo walaakhira aakhiro wallahi ilaahayna yaclam isagaa taa garanaya wa antum idinkuna laa taclamuuna ma garanaysaan arday toddobaad waxa weeye inxiraaf iyagoo ka leexdaan bacda rijaali ragga qaar wa khiyaanatum ay khiyaameeyaan lisawjaatihim xaasaskooga waxyaabaha keena oo bimacaasharati la macaamilaan maxay la macaan nisaa dumarka alajanabi ajanabiga waa maxay dumarka ajanabiga waa dumarka aanay qabin maxay kula macaamilayaan calaa kayri weji asharci calaa kayri weji aan ahayn asharci tay diintu inoo sharciyasa faykunu hada kaasna wuxuu aanayaa mudaacaad mid sidana u yeedha lianna maxaa tuqaabilu sawja gabadhuna waxay ku qaabili doontaa sawjaha odaygeeda maxay ku qaabili doontaa bimisli un u dhigantaa maa qaabalaha bihi tuu ku qaabilay markaa islaantiisa oo kamaa tudinu tudaan baa dhici doonta saaad u dhaqantaa lagula dhaqmayaa marka wasaa'il waqaaya min asina haddaba dariiqooyin ayaa lagaga hortegaya sinada mar haddaynu soo aragnay sababihii keenayy maxaa lagaga hortegi karaa waidaa kaana hadduu ahda alislaam islaamku qad xarama mid xarimay asina sinada faqad wadaca wuxuu u dhigay lilfardi shaksigii waliljamaaca jamaacadii muuminada aheed manhajan dariiq buu u dhigay waqaa'iyan lagaga hortegayo oo lilxuluulati lagaga siimayo ama deyrkaa lagu xidhayo oo duuna alwuquuci fii aanu ku dhaceen ko waa maxay fa amara allahu lmara gabadhii ilaahay wuxuu amray bisadri inay is asturto wa cadamu ibdaa oo aanay u muujin siinataa quruxdeeda amaami horta alrijaali ragga alajaanib ragga ka ajanabiga ah ee geeya marka qaala tacaala ilahi wuxuu yihi yaa ayuha nabiyu nebiyahu qul ku dhali aswaajika xaasaskaaga wa banaatika hablahaaga wa nisaa'i lmu'miniin iyo dumarka mu'miniinta yudniina isku roga oo huwada calayhina korkooga min jalaabiibihina jalbaabka oo xidha jalbaabka la yidhi daalika taasaa adnaa ugu dhow an yucrafna in la garto falaa yudiina aan la dhibin marka oo la garto inay gabadh asturan tahay
wa kaana allah ilaahay wuxuu ahaaday kafuura mid dembi dhaaf badanoo raxiima naxariis badan ka labaadna waxay amara ilaahay wuxuu amray almu'miniina mu'miniinta walmu'minaat iyo dumarka mu'minaadka biqadi lbasar in aragga la laabo faqaala tacaala ilahay wuxuu yihi qul ku dhi nebi maxamedo lilmu'miniina mu'miniinta yaquduu laaba min absaarihim araggiina wayaxfaduu ilaaliya furuujahum xubintiina taranka daalika kaasaa askaa lahum inii daahir badane ina allaha ilaahay khabiiru isaga xogaal u ah bimaa yasnacuuna waxay samaynayaan ka saddexaad waxay amara waxa la amray bilistidaan in laga idan dalbo fi dukhuuli gelitaanka inaan la iska gelin oo ma soo galaa uu qofka yidhaha wa min ajli kaasina alaadaabu waa adaabtii alatii taasoo jaa biha u yimid alislaamu islaamku oo fi nidaamkii ah alcilaaqaati xidhiidhkii qoysnimo iyo reernima qaala tacala ilahi wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aaman ku ilaah rumeeyow laa tadkhuluuha gelina buyuutan guryo kayra buyuutikum aan guryihin ahayn xataa tasta'nisuu ilaa ayaad ka idan dalbasaan oo watusallimuu aad salaamaysaan calaa ahliha ehelkeeda daalikum taasaa khayru lakum inii khayr badan lacalakum markaa waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waantowdaan wanaha waxaan inoo diidoo kale cani lkhalwa inuu qofkii gabadh gaar la noqdo sadantaa waxaa lagu joojinayaa lidariicati marmarsiyaha waqadcan waxaa lagu joojinaya lishubhati shakiga wadara waxaa lagu riixaya oo meesha lagaga saaraya asbaabtii keenaysay alwuquuc inay dhacaan fi sinada lamaa sabata waxaa ka sugnaaday fii xadiisi can cuqbata ibnu caamir waxaa ka sugnaaday xadiiskaas wiina soo maray ardaye ana rasuullahi rasuulka ilahi sal allahu alay waslm qaala wuxuu ihi waiyaakum waxaan niga digayaa ragyow addukuul inaad u gashaan cala nisaa dumarka faqaala rujul min ansaar baa ya rasulallah rasuulka ilaahayow afara'ayta ka waran alxama dumaashiga ka waran qaala wuxuu ama seediga qaala wuxuu rasuulku alxamus dumaashiga ama seedigu almowt waa dhimasho yani way ka darantao way ka xun tahay dhimashada qodobka afaraad amar alislaam islaamku wuxuu amray kayra qaadiriina kuwaan awoodin cala siwaaji guurka aan awoodin maxaa la amray bilisticfaaf inay dhowrsoonaadaan wasabri ay sabraan oo wayakuunu ahaadaan bilistiqaal kaar ku mashquulsan waayo waktiga waa la buuxiya firaaqa waa laga ilaaliyaa nafta wayakuunu waxaa ahaanaya bilistiqaal qaar ku mashquula bisaalixaati wixii wan wanaagsanaa ee min alacmaali acmaala wa mulaasamati waa inay joogteeyaan digrigii iyo wa qiraa'ata akhriskii alqur'aan qur'aanki mar hadday awoodi waayaan waa inay waxa weeyaan amar islaamku wuxuu amray kayr qaadirin kuwaan awoodaynin cala siwaaji guurka bilisticfaaf dhowrsooni wa sabri sabr inay sabraan wayakuunu ahaadaan bilistiqaali qaar ku mashquulsan bisaalixaat wixii fiicnaaya min alacmaali acmaala wa mulaasamata ay laasimaan oy joogteeyaan digriga iyo wa qiraa'ata akhriska alqur'aan qur'aanka ka shanaad wadaca waxa laynoogu baaqaa ilaksaar inaynu badino min asiyaami soonka fajacalu waxa laga helay min acdami ka ugu waaweyn wasaali dariiqooyka alwaqaa'i lagaga hortegayo sinada limaa lahu maxaa u sugnaaday min asr raad facaalin saameyn badan cala nafsi nafta oo fii kabxi waxaa lagu joojinayaa jamaax waa mamanaanta ee ashahwaad shahwooyinka oo baahidiya wa tahdiyati waxaa lagu dejinayaa alhaytaani in la kiciyo alghariisa waa maxay baahidii jinsiyada oo hamadiya waxaa kaloo oran kartaa watahdiati waxaa lagu dejinaya alhaytaani inay kacdo alkhariisata abuurka aljinsiya xagga jinsiga ah oo ah hamadiya khaasatan gaaraan cinda ficati kooxdii ashabaab dhalinyarta raysama waxay la mid tahay xaysama ilaa yo tatahaya loom ay diyaarsanayaan asbaabu sababii aswaaji guurka oo fayqnihum allahu ilaahay ku hodaneynayo min fadlihi fadligiisa qaala tacala ilahay wuxuu ihi waliyastacfif ha dhowrsoonaadaan aladiina kuwii laa yajiduuna aan heleynin oo aan karaynin nikaaxan guur xataa yugnihum allah ilaa ayuu ilaahay hodan kaga dhigayo min fadlihi fadligiisa wa fii xadiiskana ina soo maray qaala rasulku wuxu uhi sal allahu alيh wasalam yaa macshar ashabaab jamaacadii dhalinyartow man istadaaca qofka kara ee minkum idinka inaga mid a alba masaariftii iyo dhaqaalihii guurka oo ba waxa la yidhaha man qadara calى takaaliif xayaati zawjiya falyatasawja iska gursado fa inahu aqada iyadaa u laabitaan badan lilbasri xagga aragga wa axsan iyadaa u dhowrsoonif badan lilfarji xubinta taranka dawadii buu markaa rasuulku halkaa ka sheegay haddii waxa weeye qofku kari waayana waa tan dawadii waman lam yastadic qofkaan karayna fa caleyhi korkiisa waxa ahaaday bisoomi soom maxaa yeelay fa inahu lahu soonkaasi wuxuu ahaanayaa wijaan dhufaan waa maxay waa marka geel lexniyo sibo kaasir lishahwati shahwadiisan iyo waxaan kicinaya iyo baahidiisan xagga jinsiga ayay daboolaysaa marka
oo ay joojinaysaa marka ardayay tadriibaadka waa leeliski أكمل هذا الحديث حديث كان دمي والله يا معشر الشباب من استدعى منكم إلى آخر الحديث لماذا حرم الإسلام السنة سنة محي دين الإسلام كو حرم واحد كلا شكتا بعد بركة من وسائل الدريقية وقائل تجي ورتجي من السنة تانا وين وعرقنا تشناد أمر المسلمين توحوا أمري بالمؤمنين رقم المؤمنين والمؤمنات بقدر البصر إن أرجع لابان بقدر لابان البصر رجع لماذا ومحله أمري مع ذكر الدليل أدو الدليل كشيء يا مرك أنت أصلا كسوق جبيننا برنامج كاني هذا وحكبرن توس ولا سعني تلفزيون كقرنك يا راديو هرجيسة المقعد وعبد الفتاح عبد الله عمر كل كان ضمبها دوي لها إلى أنت أصلا كنت وشننا ليلس كان على قصة الشقية وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وحناهاي وهديقة دوسيدا وحناهاي وانا معلمك وحناهاي وهديقة دوسيدا وحناهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا أو بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو